Assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenii diblomaasi. Toddobaadkii u dambeeyey waxaa soo badanaysay wararka ah in ciidamada Ruushku duqeymo ba'an ay u geysanayaan magaalooyin kala duwan oo ku yaala dalka Ukraine. Waxa yar dabadeedna dowladda Ukraine waxay bilowday inay dowladaha reer galbeedka u weydiisato qaababka lagu difaaco cirka. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir haddaba daawadayaal halkan waxaa idinka muuqda qaab lagu difaaco cirka. Xilliyadii hore cirka waxaa lagu difaaci jiray qoryo waaweyn oo keliya, balse xilligaa ma aanay jirin madaxyo qaada nuclear iyo madaxyo kale oo lagugu soo weerarayo oo wada waxyaabo biological ah. Sidoo kale waxaan meesha ku jirin gantaalada aynu u naqaano hypersoniga, cruise-ka iyo balastiga. Waxayna qoryahaasu isku dayi jireen inay ka hortagaan gantaalka lagu soo riday. Ugu yaraana hal gantaal si ay uga hortagaan waxay ridi jireen in ka badan 20. gantaalkaasuna ma ahayn mid waqti siiya markiiba waxa uu burburin jiray halkii loo soo diray. Xilliyada hore diyaaraduhu waxay soo tuuri jireen gantaallo ay ku bartilmaameedsanayaan goobo istaraatiiji oo keliya, mana ahayn gantaallo xambaarsan waxyaabo kiimikaal ah. Haatanse gebi ahaanba qoryahaasu meesha waa ay ka baxeen. Cirkana waxa lagu difaacaa waa qaab oo keliya. Qaabka ugu yarina waxa uu ka kooban yahay saddexda idiin muuqda intahay khasaaro dhimasho badanina ay ka dhalan karto. Marka ay noqoto waxyaabaha ugu yaryar ee hawo lagu difaaco waa qalabka garabka lagu qaado, kaasoo isagu awood leh inuu soo rido helikobtarada jawiga hoose ku soconaya iyo diyaaradaha yaryarka ah ee aan duuliyuhu wadin. Mana aha mid isagu leh wax raadaar ah. Intay shaadu qabato ayaad ka tooganaysaa uun. Qaabka aynu hadda soo aragnay waxa uu ahaa mid ridada gaaban ah. Marka aynu fiirino qaababka ridada dheer iyo kuwa kale khatarta ee la dagaalama gantaalada hypersoniga, cruise-ka iyo blastikada ah ayaa waxay yihiin kuwa ridadoodu ay dheer tahay. Waxaa jira kuwa kumanaan kilomitir ka dagaalami kara, inkastoo intooda badan ay ugu fiican yihiin kuwa 500 kilomitir ilaa 400 kilomitir wax ka difaaci kara, kagana hortagi kara gantaalada. Waxaanuna ka xusi karnaa qaabka difaaca ee Ruushku sameeyay la yiraahdo S-400 oo isaguna ah qaab dhammaystiran oo ilaa 4 baabuur ka kooban. Baabuurtaas ayaa mid waxa uu yahay kan raadaarka wada, mid kalena uu yahay qolkii maamulka gantaalada riditaankoodana amriyay, halka baabuur kale uu jiro oo wada isagu rasaasta gantaalada. Waxaa daawadayaal haatan idiin muuqda qaabka difaaca cirka ee Patriot-ga la yiraahdo ee lagu farsameeyo gudaha dalka Mareykanka oo ay isticmaalayso dowladda Sacuudi Arabiya. Ma ahan hal qoriyo meel yaala ee waa qaab dhan oo isku xiran. Shaqada ugu yarna waxa qabtaa kan isagu gantaalada rida oo ah kan qaata amarka ugu dambeeya. Muhiimadda ugu sarreysa waa raadaarka isagu ilaalinaya in halkaa uu soo galay gantaal cadow, durbadiina u sheegaya meesha uu ku wajahan yahay iyo culayskiisa waxa uu yahay, iyo inuu sido madaxyo nuclear ah. Iyo dowladaha ay had iyo gooraale ka socdaan dagaaladu sida maamulka xoogga ku dhisanaya Yuhuuduna waa kuwa halkii saacba rara gantaaladooda si aanay u ogaan Falastiiniyiintu halka ay yaalaan. Isku soo wada duub oo qalabka difaaca cirka haddii uu yahay mid tiiro gaaban iyo mid tiiro dheerba waa midaan ka maarmin, saldhigna uu yahay raadaarku, kaasoo u sheega gantaalka ku soo maqan waxa uu yahay iyo halka uu ku socdo. Wixii ka dambeeyana waxa macluumaadka u diraya qaybta hubinta oo iyadu diraysa gantaalka la mid ah una dhigmo burburiya. Waana sida uu u shaqeeyo qaabka difaaca cirka. Marka si ay noqoto ilaalada hawada, shaqadoodu waa mid kala duwan. Qaabka ugu daran oo cir loo ilaaliyaana waa in la sameeyo aag ka caagan duulimaadyada. Taasuna waxay ka dhigan tahay in diyaarad walbo soo gasha anka haddii ay tahay mid rikaab ah dhulka la soo dhigo. Sidoo kale waxaa jira qaabab kale oo difaaca cirka ah looguna talagalay goobo muhiimad gaar leh sida garoomada ciyaaraha lagu daawado oo kale. Kuwaasuna waa kuwa la dagaalama daroonada commercialka ee dadku ay adeegsadaan in inta qarax loo soo dhiibo lagu soo hago garoonka. Waxaana dowladuhu isticmaalaan qalab yar oo difaaca cirka ah. Had iyo gooraalena waxaad ku arki kartaa garoomada kubadda lagu ciyaaro dibaddooda. Waxaana hagaya khabiir qol ku jira oo isagu laabtoobkiisa kala socda. Qaabkaasu ha yaraado, balse waa mid u shaqeeya sida qaabkan aynu arkayno oo kale. Waxa uu leeyahay raadaar yar
oo u sheegaya in daroon ay soo gashay, kadibna waxa uu u dirayaa gantaal yar oo daroontaa burburiya, inkastoo dadyowga waddada maraya aanayba waxba dareemin.